wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa maanta koobab guddoonsiiyay 3 kooxood oo ku guuleystay tartan ciyaareedkii bishii barakeysneed ee Rabadaanto ay qabanqaabadeeda iyo maalgelinteedaba lahayd hay'adda wadaniga ee Soif isla markaasina ay hay'addu qabato bil walba oo Rabadaan ah. waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye, xildhibaan Cabdilaahi Xasan Nuur oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco, iyo suduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta hay'adda Soif. munaasabadaas ay wuxuu goreentaba ka hadlay Liibaan Axmed Bile oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda wadaniga ee Soif, waxaana warbixin dheeraad ah ka bixiyay tartan ciyaareedkan Soif Cup ee soconayay bishii barakeysneed ee Rabadaanta ay hay'addu maalgelisay. koobkan ama saddexda koob ee maanta halkan lagu guddoonsiin doono 3 kooxood oo kala duwan waxay ka kala socdaan 3 heer oo kala duwan oo ah kooxaha gobolka Togdheer. heerka labaad ee Sare B-da, heerka saddexaad ee Sare C iyo heerka afraad ee Sare D-da. saddexda waxa ahayd 3 wareeg oo socday bishii Rabadaanta. mid wuxuu ka socday garoonka weyn ee Alamse Stadium, midna wuxuu ka socday labada kale waxa ka socdeen garoonka kale ee Bayl ee ku yaala halka magaalada Burco gudaheeda ku yaala. saddexda kooba waxay ku dhamaadeen si guul ah ku dhamaadeen. isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo xildhibaan Laki oo halkaas hadallo kooban ka soo jeediyay ayaa maamulaarin u soo jeediyay hay'adda wadaniga ee Soif ee tartan ciyaareedkan hirgelisay. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay'adda wadaniga ah ee Soif ee naga maalgelisay koobabkan kala duwan ee ka socday 3 garoon ee bishii Rabadaan ee koobabkii Rabadaanta ahaa ee ku soo dhamaaday sida guusha. wasiir iyo gudoomiye hay'adda Soif muddo 9 sano ku dhow iyada gacanta ku haysay sportska gobolka Togdheer si aan jooyada kale iyo hay'adaha kale ula shaqeyn ay dhalinyarada gobolka Togdheer ula shaqeynayeen. sanadkiiba 2 jeer 3 jeer bay wareegiyo furi jireen. aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa wax badan ay dhalinyarada gobolka Togdheer u qabteen. gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo isna geestiisa hadallo kooban ka soo jeediyay munaasabadaasi ayaa waxa uu iftiimiyay ahmiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin dhalinyarada, waxaana uu yidhi intaa kadib runtii hore loo yidhi jirka fayooba caqliga fayooba ku jira. ciyaaraha sportska waynu naqaanaa adduunka kaalintay kaga jiraan, hadday tahay xagga walaaltinimada iyo isdhexgalka, hadday tahay xagga caafimaadka iyo muxuu ahaa barbaarinta iyo soo kobcinta jirka daayarta. ciyaartu waa qayb ka mid ah nolosha oo very important, aad u muhiim ah inay idin kaga hadhaan daraasadiina maaha. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegal oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu hadallo waana iyo dhiirigelin isugu jira u soo jeediyay dhalinyaradii kala duwan ee halkaasi lagu guddoonsiinayay koobabka iyo abaalmarinaha. ugu mahadnaqaya runtii waxa weeyaan wax xaqiiqa markaynu hadalka soo koobno dadka loo shaqeynayo wax kasta loo qabtee waa dadkiina halka fadhiya weey. waxaad arkaysaa imkadeynimada halka joogay qurba joogta ee alaabta soo iibiyay dadnina lacag umayna dhiibin umaynaan dirin isagoo iska maqan buu idin xusuusta. markaasuu isir war bal dhalinyaradii gobolkii Togdheer aad ka timi ee sportiga wax u gee waa in aad maskaxda laga shaqaysiyo la fahmo la garto sida ay kuwaas u garteen inay wax idin soo qabtaan, idinkuna inaad gobolkiina wax u qabataan, sportigana wax u qabataan, horumarka gobolkiina ka shaqaysaan, idinkuna aad fahantaan waxa la wadaelaya inay tahay wax dadka ka dhaxeeya. ururka halkan Soif lacag umayna dhiiban oo noo shaqeeynaan oran. waxaana halkan laga cadeeyay inuu waqti dheer inuu dhalinyarada u shaqeynayo waliba qaybta sportiga oo xoog saaray. anigoo kale qayb kale inuu ka qayb qaatay oo ama seminaaro googos ama workshop la qabtayna kuwaas ay jiraan, haddana inuu qaybta sportiga xoog saaray ma ahayn waxaynu dhiibanay. waa tala isaga ka soo go'day oo asalkeeduna yahay inay dhalinyarada gobolka oo ay dhalinyaradoodii inay wax ku taraan wax ku tari karaan la qabtaan. gabagabadii waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyay koobabkii kala duwanaa kooxihii ku guuleystay iyo abaalmarino ay ku guuleysteen shakhsiyaadkii kaalmaha wanaagsan ka galay tartan ciyaareedkan intuu socday. waa Khalid Bakeele, shabakadda caalamiga ee Ictiraaf News, Burco.